Si sare loogu qaado wax soo saarka beeraha dadkana ay si toos ah kaga faa'iideystaan biyaha webiga ayaa maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo kaashanayay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa ay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ay ka fuliyeen kanaal qodis lagu sameynayo goobaha inta badan ay dadka si toos ah kaga faa'iideysan karaan biyaha webiga. Inta badan waxaa dib u habeen lagu sameeyay kanaalo hore u dugmay sidoo kalena waxaa la qoday kanaalo cusub. Gudoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala ayaa u kuura galay halka ay marayso shaqada kanaal qodista laga wado deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose taas oo la doonayo in dadka beeralayda ah ay si toos ah u helaan biyaha webiga. Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala gudoomiyaha deegaanka Janaale ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax oo suurto geliyay in beeralayda deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ay si toos ah u helaan biyaha webiga iyadoo haatan meelo fiican ay marayaan qodista kanaalada ee laga fulinayo gudaha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan soo booqanay dayactirka ka socotay kanaalada deegaanka Janaale. waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wasiirka wasaaradda beeraha ee dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiir Musaf Axmed Iidow iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Najax oo iska kaashaday arintan in ay dadku helaan biyo ku filan kanaaladii la qodo beeralayda ay helaan ay macnaha motivation wanaagsan ay helaan ay beer walbo ay biyo gaaraysa deegaanka Buufo Bacaad oo laga go'doomiyay inay biyo gaaraan. maanta waxaa suurta gashay in keligii Buufo laga soo bilaabay ilaa Janaale la qodo si tuulooyinka iyo deegaanada ay u gaaraan biyo ku filan beeraleydina ay helaan jawi tacbash wanaagsan ay macnaha tacbadaan dalagyo fiican ay soo saaraan walow sanadooyin aysan helin dayactir kanaalada maysan helin. kanaalada waxaa ka muuqatay burbur aad u xoogana ka muuqatay. hadda markaan imaanay aan u koorgalnay xaaladda aan cabashada u gudbinay maamulka gobolka durbadiiba uu ka soo jawaabay. haddana waxaa socoto kanaaladii rehabilitation lagu sameynayo buundooyinkii. waxaan ka codsanayaa marka maamulku inay inta uusan ku joojinin uu keeno abuurkii uu keeno falkii lacag la'aanta ah si ganacsatada danta yar ay u helaan jawi ay wax ku tacbadaan ay waxna ku soo saaraan dadkuna ay ku gaaraan barwaaqo iyo bashbash ay ku gaaraan. run ahaantii Soomaaliya waxay dhahdaa badarka banaanka yimaado baay kama gooyo. waxaan noo roon inaan tacbano inaan daaqsano balanteenu waa tacab iyo tacliin.